kulanti wanaagsan oo wacan meel kasta oo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada waraysigan aadka u kooban oo aanu ku waraysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya waraysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale oo fasireen qaarna ay aad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska horkeeno waxaan weydiinayaa Maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa u qorshaysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jilaayada Maxamed soo dhaw TV Universal marka عبد الحفيظ aad baad u mahadsan tahay Allah ku casmo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay daawanayana aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsiib ugu dirayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtahay naga kor qaado tacsiida horta waan dirayaa mar labaadka si xun wuxuu sheeg sixir wuu ka daran yahay dab munaafaqshaday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan oo tacsiye baan diray dabadna dad ba ka faa'iideysto xagga kale ka rogay waxaan taageerayaasheeda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan ogahay inay jeceshiin waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba Maxamed tacsibaad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waa adiga sheegay hameen horena waad sheegtay xalana waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatada soo gaartay inay ka tacsiinaysan ka xuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhaxoodimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaan عبد الحافظ aad baad u mahadsantahay adiga iyo Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu biikahan waa iska kay murgeen laakiin waan kala saaraya anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay muraayada gariina sitay waan iska saaraya fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tagayaa socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tagayaa labadayda shaway ugu horeeyana waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto anigu Soomaali waan jeclahay ma nacbi si xun wuxuu sheeg sixir wuu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay inta u dadaalaysa daryeelkiisa iyo naftiyo sidoo u dulmari lahaa daadii u dhaafin lahayd hawliga ugu daashay ficil inta isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabiyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo YouTuber sida wax xaganayad helaysaa beel si journal wax si khaldan loo gelinayaad arkaysaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jiray in badan baan habaariyo wax arkay social media ma isticmaalo laakiin uurka iiga duceeya ee habaarkii duco iigu bedela inta la sii noolaanayaaba waa muddo anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasto Soomaaliyan la ballan waxaan ku qaaday inaan labadayda adin ku tago way uga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan ba dhibaato ay dhaxtaala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya ee malaayiinta ee fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhaw عبد الحافظ aad baad u mahadsantahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnaan oo kabarday naga duubayo nin qaali ah Barasaab iyo Cabdi Waasac oo niman qaali ah oo showgii muhiimka ugu horeeyay gilaha oo in la fadhiya dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deenu weyn ciidamada ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsin karaa igu tuurade markii hore ciidamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kasto Soomaali joogto inaan idinku imaado waan idinka raali gelinayaa I love Muqdisho
xaalna waan siinaya intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waraysigan aadka u kooban ummadda soomaaliyeed qof aan khaldamin ma jiro maxamed waa maqlaysaan raalli kama ihi buu yidhi wixii dhacay waa ka xumahay ilaahay baan khaldaminin shicibkaas soomaaliyeed ee walaalaha isdugsanaya colaad iyo dhibaato yaan la dhex dhigin yaana laga faa'iidaysanna xumaan loo fasirin qof aan khaldaminin adduunka ma jiro walaalka hadduu raalli ku yidhaahdo madaxa la saartaa aad baa u mahadsantihiin maxamed aad baadna u mahadsantahay Thank you, Abdi Xafid. taanki